السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka hore waxaan u mahadcelinaynaa kulligeen maamulka iyo shacabka galmudug gaar ahaan reer Dhuusamareeb sida wanaagsan ay noo soo dhaweeyeen waartinimada leh aadka ay noo tuseen qalbigooda iyo dadjaceelka iyo Soomaalinimada iyo wadanimada ay noo tuseen aad iyo aad yaan uga mahadcelinaynaa soo dhaweyntooda wanaagsan sidaas oo kale waxaan u mahadcelinaynaa maamulka iyo shacabka degmada Cadaado oo martigelisay maamulka galmudug qayb weyn ka qaadatay dib u heshiisiintii galmudug ay soo gaarsiiyeen heerkan aan maanta joogno aad iyo aad u mahadsanyihiin intaas kadib maanta waa maalin taariikhi ah waa maalin aan u fadhino goobtan dhamaystirka dib u heshiisiinta ama heshiisiinta maamulka galmudug iyo ahlu sunna wa jamiica ee lagu saxiixay magaalada muqdisho sanadkii la soo dhaafay December 7 soo raali ahaa 7 December 2017 sanadkii la soo dhaafay waa maalin reer galmudug ay ka baxayeen kala qaybsanaanshaha iyo colaadaha ka jira deegaanadan muddo dheer heshiiskan maanta waxay muujinaysaa inay tahay guul kulli u soo hoyatay kaliya ma aha galmudug ee ummadda Soomaaliyeed ee shacabka Soomaaliyeed waa mid albaabada u furtay nabadda wadajirka iyo wax wada qabsiga reer galmudug mudanayaal iyo marwooyin heshiiska aan maanta aan dhamaystirayno waa mid ku yimid biseel siyaasadeed iyo tanaasul ay la yimaadeen madaxda labada dhinac oo ugu horeeyo madaxweyne xaaf iyo sheekh maxamed shaakir waa mid labada dhinac ay uga tanaasuleen qayb ka mid ah xilalka ay hayeen waxa weeye waxaan hore loo arag sidoo sheegay mudane xaaf awoodiisii wuu dhimay sheekh shaakirna awoodiis waa ka tanaasulay marka waa cashar kulligeen ay tahay inaan wax ka baranno heshiiskan wuxuu soo maray jid dheer oo ay ugu horeeyeen in loo kala dabqaado labada dhinac waxaa jiray shirar ka dhacay dalka gudihiisa iyo dibaddiisa oo la isugu soo dhaweynayay ahlu sunna wa jamiica iyo dowlad goboleedka galmudug waxaanan si gaar uga mahadcelinaynaa dhinacyadii heshiiskan ka soo qaatay soo fududeeyey ay ugu horeyso dowladda Djibouti iyo ururka goboleedka IGAD dowladda walaalaheena Djibouti mar walba ay arkaan inaan dhutinayno waxay isku dayaan in garabka qabtaan waa inaan si gaar ah uga mahadcelino iyo urur goboleedka sida gaarka isku xilqaameen IGAD waa mahadsantiin walaalayaal heshiiskan maanta waa mid bilaaw ah oo u baahan in la sii wado lana qanciyo cid walba oo wax tabanaysa inaan qancino oo aan ugu tagno meelahooda si aan u dhisno dowlad goboleedkan aan u xoojino ee uga shaqeeyaan horumarkooda ee uga shaqeeyaan heshiiska maanta waa mid bilaaw ah saan sheegay waa inaan cid walba aan u tagno dhamaystir ma aha hawshu hadday noo bilaabatay waxaan rabaa qof walba inuu qaybtiisa ka qaato tanaasulkan bilowdayna aan sii wadno hadduu eebba yiraahdo heshiiskan maanta hore loo saxiixay wuxuu gogol xaar u ahaa in la isku daro labadan maamul iyo labada ciidan oo aan maanta soo arkay si ay ula dagaalaan ay u ciribtiraan
qolooyinkan khawaarijta ummadda Soomaaliyeed dhibka ku haysta oo aan uga horeyno meelaha ay haystaan ay ku hareen dowlad goboleedkan galmudug ma xamili karto inay isugu darsanto culays colaadeed iyo mid dhaqaalo xumo inay isugu darsanto waxaan markhaati u nahay intaan soo soconnay sidii ay u burbursanayd jidadkii la dhisay sanada ka hor 27 sano inaan waxba laga qaban oo meeshii loogu talagalay in loo socdo nusaac ay qaadanayso in loo socdo saacado fara badan mudanayaal marwooyin dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay diyaar u tahay inay gacan buuxda ka siiso dowlad goboleedka galmudug sidii loo dhaqan gelin lahaa heshiiskan loona dhisi lahaa hay'adaha maamulka iyo kaabiyaasha dhaqaalaha loona xoreyn lahaa degmooyinka ka maqan gacanta galmudug dib u habeen buuxdana loogu sameyn lahaa ciidamadeeda waxaan ugu baaqayaa dowlad goboleedyada dariska la ah ee Puntland iyo Hirshabeelle inay iyaguna sidii la sheegay ee kaalin mug leh ka qaataan dib u heshiisiinta dadka waalahooda oo muddo dheer colaadda ku jiray sidaas darteed waxaan u magacaabaynaa hadduu eebba yiraahdo guddi dib u heshiisiin ah uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta hadduu eebba yiraahdo ugu dambeyn waxaan ugu baaqayaa beesha caalamka gaar ahaan deeq-bixiyaasha inay ka qayb qaataan taabagelinta heshiiskan iyo dib u dhiska hay'adaha dowlad goboleedka galmudug ugu dambeyntii heshiiskan waa mid u baahan in maamulka iyo shacabka galmudug ay gacmaha isqabsadaan iska iloobaan waxyaabihii hore u dhexmaray si wadajir ahna uga marin dhaliyaan heshiiskan taariikhiga ah una soo wada jeestaan dhismaha iyo horumarinta gobolkan oo runtii dib u dhac weyn ku dhacay 27 sano la soo dhaafay walaalayaal waa mahadsantihiin waxaan noo balana inaan dhaqan gelino dib u heshiisiintan soo maaha soo ballan maaha annagana waan naga ballan inaan gacan siino assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu